Waqtiga taariikhda marka laga hadlayo, waxaa jiray dagaallo waaweyn oo sababay burbur iyo dhimasho, laakiin waxa kale oo jiray dagaallo yaryar oo la yaab leh oo dadka ka yaabiyay. Mid ka mid ah dagaalladaas ayaa ah dagaalkii kalluunka ka kacay, ama sida loo yaqaano Lobster War, oo dhex maray dalalka Faransa iyo Brazil. Inkastoo magaca dagaal uu hadal ahaan u egyahay wax weyn, dagaalkan wuxuu ahaa muran yar oo ka dhacay Badweynta Atlantika dhexdeeda oo ku saabsan kalluunka ku nool badda, gaar ahaan nooca kalluunka qoto dheer ee loo yaqaan lobster. Muranka ka dhasha kheyraadka dabiiciga ah ee badaha waa mid aan ku cusbayn taariikhda bini'aadamka. Dagaallo badan oo waaweyn iyo xiisado siyaasadeed ayaa inta badan ka dhashay loolanka loogu jiro in dalal kala duwan ay maamulaan kheyraadka dabiiciga ah ee ay wadaagaan. Sheekada la xiriirta Lobster War, dagaalkii kalluunka ka kacay, waa mid ka mid ah dhacdooyinka la yaabka leh ee soo maray dunida, gaar ahaan murankan u dhexeeyay dalalka Faransa iyo Brazil oo ku saabsan xuquuqda kalluumeysiga ee kalluunka ku nool Badweynta Atlantika. Lobster waa nooc ka mid ah kalluunka ku nool gudaha badda oo leh qolof adag iyo hilib qiimo leh, laakiin waa muhiim in magaciisa af-Soomaali ahaan si sax ah loo fahmo. Af-Soomaali ahaan, lobster waxaa badanaa loogu yeeraa kalluun qolof leh ama kaamilada badda, laakiin ereygan si gaar ah looma turjumin. Hase yeeshee, wuxuu ka duwan yahay ayax oo ah cayayaan dhulka ka kaca. Lobster waa kalluun badda hoosteeda ku nool oo leh qolofta adag iyo lugo tiro badan oo aan xiriir la lahayn ayaxa, kaasoo caan ku ah dhulka. Lobsterku waa kalluun badda hoosteeda ku nool. Dagaalkan yar ee la yaabka leh ayaa markiisii hore u muuqday mid ku saabsan kalluumaystayaal, balse waxa uu si weyn u noqday mid sababa ismariwaa siyaasadeed iyo ciidan oo weyn. Sannadihii 1950-yadii, maraakiibta kalluumeysiga ee Faransa ayaa si joogto ah ugu kalluumeysan jiray biyaha ku teedsan xeebaha Brazil, iyagoo ugaarsanaya kalluunka ku nool goobahaasi. Kalluunadan waa kheyraad qaali ah, gaar ahaan waa kuwo hilibkooda aad loo raadiyo, waxaana marar badan loo isticmaalaa ganacsiyo waaweyn oo caalami ah. Dagaalkan ayaa salka ku hayay muranka ku saabsan kalluunka oo ku nool xeebaha Brazil ee ka tirsan dhulkeeda, ama in kalluunkan uu ka mid yahay kheyraadka caalamiga ah ee cid walba u furan. Dagaalkii kalluumeysiga ee Lobster War wuxuu dhacay intii u dhaxaysay sannadihii 1961 ilaa 1963. Xilligan ayaa muranka u dhexeeyay Brazil iyo Faransiiska ku saabsanaa xuquuqda kalluumeysiga kalluunkan oo ku noolaa xeebaha u dhow Brazil. Ugu dambeyn, dagaalkaasi ayaa cirka isku shareeray sanadkii 1961. Murankan wuxuu ka bilaabmay xeebaha waqooyi ee Brazil oo ah goobta kheyraadka kalluunka ay aad ugu fara badan yihiin. Faransa, oo ah dal ku tiirsan kalluumeysiga, gaar ahaan nooca lobsterska, ayaa bilowday inay u dirto markabyo kalluumeysi xeebaha Brazil si ay u soo saaraan lobsterka qaaliga ah. Brazil waxa ay u aragtay arrintan in ay tahay faragelin kheyraadkeeda dabiiciga ah lagu hayo, maadaama kalluunkani laga helo badda Brazil ayna yihiin kuwo u gaar ah deegaankaas, halka Faransa ay ku doodeysay in kalluumeysigani laga sameynayo meel ka baxsan xadka Brazil oo ku taalla biyaha caalamiga ah. Brazil ayaa sheeganaysay in xitaa hadday tahay biyo furan, lobsterskuna waxay ahaayeen kheyraad dabiici ah oo Brazil ay leedahay. Arrintan ayaa si tartiib tartiib ah u sii xoogaysatay, iyadoo labada dal ay isku haysteen xuquuqda biyaha iyo kalluunka. Brazil waxa ay ku andacoonaysay in lobsterska sida dhulku uu u yahay shay dabiici ah oo kalluunkana uu u yahay sidaas oo kale mid dabiici ah oo aan loo soo dhowaan karin.
xadkeeda oo ay ku nool yihiin. Sidaas darteed, waa qayb ka mid ah deegaankeeda. Waxa ay ahayd aragti cajiib ah oo ay Brazil ku difaacaysay kheyraadka baddeeda. Dhinaca kale, Faransiisku waxa ay ku doodayeen in lobster-skani uu u dhaqdhaqaaqayo sida kalluunka, oo haddii ay ku jiraan biyaha caalamiga ah ay xor u yihiin in ay ka kalluumaystaan meeshii ay doonaan, maadaama aanay jirin heshiisyo caalami ah oo si cad u qeexaya xuquuqda kalluumaysiga ee noocan ah. Murankani waxa uu noqday mid adag oo u baahan xalin diblomaasiyadeed. Xiisaddan ayaa si dhaqso ah u kacday markii Brazil ay bilowday in ay qabato markabyo kalluumaysi oo reer Faranse ah oo ku sugan biyahaas. Waxa ay ku eedeysay in ay si sharci darro ah ugu kalluumaysanayaan biyo ay iyadu leedahay. Tani waxa ay keentay in xiisadda diblomaasiyadeed ay kor u kacdo, iyadoo labada dhinac ay diidanayeen inay tanaasul sameeyaan. Faransa oo aan rabin inay ka aamusto maraakiibteedii kalluumaysi oo laga celinayo, waxa ay go'aansatay in ciidamada badda ay u soo dirto xeebaha Brazil si ay u difaacaan maraakiibtooda. Brazilna iyaduna waxa ay ciidamadeeda u dirsatay xeebaha si ay uga hortagaan faragelinta reer Faransa. Waxaa la isweydaarsaday hanjabaado dhowr ah, taasoo xaaladda ka dhigtay mid xiisad colaadeed ah oo halis weyn oo sababi karta in dagaal toos ah uu qarxo. Inta badan, dagaalkani waxaa loo yaqaannaa in uu yahay dagaal aan dhiig ku daadanin. Kadib bilowgii xiisadda, labada dal waxa ay go'aansadeen in ay ku xalliyaan murankooda wadaxaajood diblomaasiyadeed. Wadahadallo dhex maray labada dhinac ayaa ugu dambeyntii keenay heshiis. Faransiisku waxa ay aqbaleen in ay ka baxaan biyaha muranka ka jiray, halka Brazilna ay oggolaatay inay Faransiiska siiso xuquuq gaaban oo ay uga kalluumaysan karto meelo badan oo ka mid ah goobahan. Sidaas darteed, dagaalkii kalluunka ka bilowday ayaa si nabad ah loo soo afjaray, iyadoo wax dagaal dhab ah uusan dhicin. Si kastaba ha ahaatee, lobster war waxa uu weli ku jiraa taariikhda sidii muran la yaab leh oo ugu dhashay laba dowladood, taasoo uu sababay kalluunka ku dhex jira biyaha caalamiga ah ee badda Atlantic-ga. Dagaalkan waxa uu tusaale fiican u yahay sida xasaradaha kheyraadka dabiiciga ah ay xitaa u kicin karaan xiisado dagaal oo dhex mari kara dalal waaweyn dhexdooda. Inkastoo aanay jirin wax dhaawac ah oo ka dhashay murankan, haddana waxa uu muujinayaa sida kheyraadka dabiiciga ahi sida kalluunka ay u noqon karaan waxyaabo qiimo leh oo ay dalalku ku murmaan. Sidoo kale, waxa uu ina barayaa muhiimadda wadaxaajoodka iyo diblomaasiyadda marka ay timaado murannada caalamiga ah, halkii dagaal loo laaban lahaa. Inkasta oo magaca lobster war uu la yaab leeyahay, haddana waxa uu xambaarsan yahay fariin muhiim ah oo ku saabsan sida xiisado waaweyn loogu xallin karo si nabad ah oo wadaxaajood ah. Waa muran muujinaya sida xitaa waxyaabaha yaryar ee dabiiciga ah sida lobster-ska ay u noqon karaan kuwo keenaya ismaandhaaf weyn haddii aan si wanaagsan loo xallin. Lobster war wuxuu sii ahaan doonaa dhacdo la yaab leh oo ku jirta buugaagta taariikhda, iyadoo looga sheekeyn doono sidii muran cajiib ah oo u dhex maray dalalka Faransiiska iyo Brazil badanaaba loo arkay in uu yahay dagaal aan dhiig ku daadanin.